بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa radio qarxis oo aad kala socotaan mawjadaha dhererkooda yahay 8 كوي 20 iyo 16 barnaamijyadeena caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa muwaadin taarga shisheeye wato oo loo magacaabay jagada ra'iisul wasaaraha Amin Aamir oo bilaabay inuu isku shitaaro madaxda ugu sareyso ee dawladda ku meel gaarka iyo farakacaya ardhax maray ahlu sunna wal jalaafa iyo ciyalka xaafada bilaadka magaalada Beledweyne warkii oo fidsan muwaadin saaranta ay taargada dalka Mareykanka ayaa loo magacaabay jagada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muwaadinkani ayaa la sheegay in la horgeyn doono baarlamaanka wajiixin xaruntooda magaalada Muqdisho wararka naga soo gaaray baarlamaanka wajiixin ayaa sheegaya in ay ku xumeyn doonaan isla markaasina uu saheli doonin codka kalsoonida baarlamaanka manaha markii ugu horeysay ee baarlamaanka wajiixin loo horkeeno muwaadin taarga shisheeye wata dhanka kale Amin Aamir ayaa bilaabay inuu isku shitaaro madaxda ugu sareysay dawladda ku meel gaarka kadib markii uu soo saaray sawirkan markii ugu horeysay ee Amin Aamir uu isku shitaaro madaxda ugu sareysa dawladda ku meel gaarka ama madaxda ugu sareyso ee dawladaha shisheeye farakacaya ardhax maray ahlu sunna wal jalaafa iyo ciyalka xaafada ayaa ka dhacay bilaadka magaalada Beledweyne farakacayarkan ayaa in muddo dabadeed waxa uu qaboobay saacad kadib markii ahlu sunna wal jalaafa laga taakroonaday bilaadka magaalada Beledweyne taasoo kaliftay in dagaalku istaago dhageystayaal barnaamijkeena qaybta dambe waxaanu ku soo qaadan doonaa macallin ka tahriibay ardaydiisa isla markaasina ku geeriyooday xeebta cadan